qofan qaraabanahay wuxuu sheekayo hada dhintay xilli abaara buu yiri ama jiilaal oo xilligu yara adag yahay ayaa waxa dhacday abahayo buu yiri ayaa ninkii noogu weynaa ama raggi waa weyn kamida ayuu yiri oroodo awrka kaxeeyo hargahana qaado soo iibiyo heerka raashin u soo sii awrkii buu soo kaxeeyay hargihiina waa soo qaaday ninku wuxuu ciyaaraa turubka khamaarku aad ugu dheerayn jiray waxa balwadna waa balaayo meel uu bahalkii lagu ciyaarayo soo galay turubkii dabeetana turubkii wax ka ciyaaray khamaarkii wixii markaa uu hayay waa laga helay hargihii loo soo dhiibay buu dhigtay waa laga helay heeriyadii awrku dhigtay waa laga helay ninkii baa la waayay laba cisho heerkii waa yaabeen dabeetana waa la isweydiiyo odaygii aqalkii miyigu joogaa war ninkii hebel ma aragteen awrkaagii baa magaalada kullay geed ku xidhnaayo cadaysima ah inankiina wixii waxa naloo sheegay inuu yara khamaar iyo inta wax ku ciyaaray wixii ba laga helay wuxuu la soo guriya tago ayuu waayay qofkan qaraabadana iga sheekeynay wuxuu igu yiri sidaas uu eegay biiro wadada suuq wadadii magaalada u kacaysay buu saa u eegay odaygii markaas wuxuu yiri ilaahay waxaan ka bariyay adigoo feeraqaawan oo surwaal daba gaaba xidhan oo dhangadad awrka ku kaxaysay gacanta ku sita halka inaad ka soo gasho labada halkaana labada law iyo surka isku jabsato naftu kaaga baxda galabtii ku saddex ahayd ayuu wadadii ka soo galay isagoo feeraqaawan oo dhangadii awrka ku kaxeeyay wata oo daba gaab xidhan rufirs habarku waalidku wax noqon karaya ma sidoo uu soo socday buu yiri ayuu ardaagii aqalkii hooyaday ayuu fadhiistay uu kada loobsaday garka iyo labada loobu isgeliyay waa la kiciyaa waa la fadhiisiyaa waa ku soo noqdaa wax ma cuno ma cabo ma hadlo galabtii ku saddexayda nafta ka baxday khatar cadiim wali aabahay hooyadu kala duwan yihiin hooyadu waxa laga yaabaa in waxeedu hadal isaga bato aabuhu hadduu afka kala qaado waa khalas cadiim xilliina marka in waalidka la iska ilaaliyo